maamulka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa digniin adag u diray dadka waxyaabaha caafimaad darrada keeni kara iyagu ku shuba wabiga Shabeelle. haddaba war arrinka ku aadan waxa magaalada Beledweyne ee gobolkaasi Hiiraan inooga soo diray wariyaha RTN ee halka ku sugan Cabdulqaadir Cumar Nadaara. duqa degmada Beledweyne Cali Dhuux Cabdi Mahad alle ayaa digniin adag waxa uu u jeediyay dadka waxyaabaha keena caafimaad darrada ku shuba wabiga Shabeelle oo dhaxmara magaalada Beledweyne ka ceelasha haysta oo kaloriinka magaalada yaalo hay'adaha laga soo qaaday la siiyo oo biyaha si qaladka inta u soo qaada si qaladka dadku u siiyo tilaabo sharciga waaftana laga qaadi doono musqulaha ku furan wabiga oo hadda aan kormeerka ku hayno tirakoobkooda cid kasta oo musqul wabiga ku furan leh tallaabo sharciga laga qaadi doona musqulaha qodato hadaysan qodan karin waa inay keenaan codsi xafiiska dawladda hoose oo ay yiraahdaan dhibaatadan jirta bataatan waa in laga joojiyaa wabiga meel kasta ah musqul ku furan wabiga lama dul qaado doono markay wabigu waa ceelka Beledweyne biyaha waa ceelka ka yimaada wabiga taas laga soo qaado oo la dejiyo oo kaloriin lagu shubo iyo kuwa musqusha meel la siman oo wabiga agtiisa laga soo qaado ayay ka goobayeen waxaana tusaale u noqon karta ceel kasta oo Beledweyne biyo ka cabo wabiga saaray sida daraadeed wabiga lagu mashubi karo wax wasaq lagu mashubi karo dawladda hoose waxay u dirtay arrintaas ciidamo ka shaqeeyo hadii ilaahay ayaan u dirnay cidii baaqaas ka dhagan nuglaawaysa ka dhiga adeegtana tilaabo sharciga waafaqsan ayaan gaarsiin doonaa hay'adaha amniga ayaanan gudbin doonaa Cali Dhuux Cabdi Mahad alle duqa degmada Beledweyne ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xaalada caafimaad darro ay magaalada Beledweyne ugu geeriyoodeen in ka badan 10 ruux kuwaasi oo qaba cudurka shuban biyoodka waxaana uu hay'adaha ka howlgala gobolka Hiiraan ugu baaqay in ay wax ka qabtaan dhibaatooyinkaasi sidoo kale waxaan ugu baaqayaa hay'adaha samafalka iyo ummadda Soomaaliyeed magaalada Beledweyne hadda waxa ka bilowday shuban biyo wax la qari kara maaha hadda dadka u dhintay ilaa 10 qof ay gaarayaan iyadoo ugu badan xaafadda Howlwadaag laanteeda Hilaac soon Sigaalo iyo dhankaas shuban biyoodka wuxuu laaynayaa dadkii tabarta yaraa oo waayeelka iyo carruurta waan gaarsiiyay hay'adaha samafalka ee magaalada Beledweyne inay arrinta tallaabo ka qaadaan shacabka wax haystana waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas gargaar ka geystaan annaguna gacmaha kama laaban doono waan tagaynaa hadii Ilaahay idmo marka la gaaro xilliyada kulaylaha waxa magaalada Beledweyne ka dilaaca cudurka shuban biyoodka waxaana inta badan dhaqaatiirtu ay ku sababeeyaan isticmaalka biyaha wasakhaysan Cabdulqaadir Cumar Nadaara telefishinka RTN Beledweyne.